ma guuldaraysanaysid haddii aadan ka harin himiladaada. hal sano keliya ayuu dhigtay iskuul caadiga ah laakiin aqalkooda dhexdooda ayuu wax isku bari jiray aadna wax ugu akhriyi jiray. kaalay aan kaaga khabro sheekadan quruxda badan. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا. iyo galow inaan kula wadaago qisadii abraan oo ahaa qof in badan noloshan ku fashilmay sida aan idilkeenba u naqaano fashilka. haddaba ka hor qisadan aan kuu sheego fashilka waxa uu yahay inaad iska dayso isku day aad ugu jirtay ka dhabaynta riyooyinkaaga. abraan waxa uu dhashay 12 Febraayo 1809. abraan hooyadii iyo aabihii waxay ahaayeen danyar sabool ah waxayna deganayeen guryo kira ah oo iyagu aysan lahayn waxbana ma aysan haysan noloshooduna aad ayay u liidatay. abraan yaraantiisii noloshaas mugdiga ah ayuu ku soo koray. abraan markii uu yaro koray hooyadiis oo aad u jeclay inuu wax u barto wiilkeedu si noloshan sabooltinimada uga saaro ayaa waxa ay ku dartay iskuul laakiin nasiib darro hooyadiis way awoodi weysay inay lacagta iskuulka ka bixiso wiilkeeda si uu wax ugu barto oo uu noloshan mugdiga uga saaro. abraan hal sano keliya ayuu dhigtay iskuulka caadiga ah laakiin aqalkooda dhexdooda ayuu wax isku bari jiray aadna wax ugu akhriyi jiray. abraan isaga ayaa naftiisa wax baray hooyadiina way ku dhiirigelin jirtay inuu naftiisa wax baro waxayna siin jirtay wax walba uu uga baahdo xaggeeda. 1818 hooyadiis uu aad u jeclaa ee ku dhiirigelin jirtay ayaa dhimatay. abraan aad ayuu uga murugooday dhimashada hooyadiis waxayna ku noqotay bog aan ka go'in. 10 sano kadibna walaashiis oo ahayd qofta keliya ee xaafadooda u shaqaysa oo biisha ayaa dhimatay. dhimashada walaashiis kadib abraan waxa uu go'aan ku gaaray inuu shaqaysto oo biilka xaafadu isagu bixiyo. abraan waxa uu ka shaqo galay dukaan oo uu ka ahaa dukaan haye xaggaas ayuu ka shaqayn oo nolol maalmeedkiisa uu kala soo bixi jiray in muddo ah laakiin nasiib darro waa laga eriyay shaqadii iyada oo loo aaneynayo inuunan lahayn dulqaadkii shaqadii laga eriyay. waxa uu ku biiray siyaasad. 1832 waxa uu u tartamay golaha deegaanka laakiin waxa uu ku guuldaraystay. isla sanadkaas waxa uu go'aansaday inuu galo kulliyadda sharciga laakiin uma suuroobin inuu galo kulliyaddaas. waxaase uu qorshaystay inuu cilmiga sharcigu isagu waxaana uu soo iibsaday buugaagta lagu dhigto sharciga habeen iyo maalin waxa uu akhriyi jiray ilaa uu noqday qareen sharci yaqaan ah. taariikhdu markay ahayd 1833 abraan waxa uu lacag ka daysaday saaxiibadii si uu ganacsi ugu bilaabo. wuxuu mar labaad u tartamay golaha deegaanka laakiin waa uu ku guuldaraystay ganacsiga. sanadkii xigay 1834 wuxuu mar labaad u tartamay golaha deegaanka markaase wuu ku guuleystay waxaana uu ka mid noqday xildhibaanada golaha deegaanka. aadna wuu ugu farxay maxaa yeelay waxay ahayd markii ugu horeysay ee uu nolosha guul ka gaadho. 1835 wuxuuna qorshaystay inuu guursado gabar magaceeda la yiraahdo Anne Ratcliffe. 1835 waxa uu qorshaystay inuu guursado gabar taa oo ahayd gabadh ay isjeclaayeen muddo badan oo wada sheekaysanayeen. nasiib darro maalmo yar markay arooskiisii ka harsaneyd ayaa waxaa dhimatay gabadhii uu jeclaa abraan. jacayl uu iyada u qabay darteed ku dhacay xanuun dhinaca neerfaha ah wuxuuna 6 bilood yaalay hospital. 1838 waxa waxay afhayeenka golaha deegaanka wuuse ku guuldaraystay. muddo kadib wuxuu u tartamay kongareeska uu ku guuldaraystay. 1848 waxa uu ku guuldaraystay dib u magacaabistii kongareeska. wuxuu u tartamay golaha sare ee Mareykanka laakiin wuu ku guuldaraystay. 1856 wuxuu isku sharxay madaxweyne ku-xigeenka haddana wuu ku guuldaraystay.
haddana mar kale ayuu isku soo sharaxay 1858 waxa uu ku guuldareystay inuu center noqdo intaas oo guuldarro ah kadib 1860 waxa uu ku guuleystay in loo doorto madaxweynaha dalka Mareykanka isagoo taariikhda ka galay madaxweynayaashii Mareykanka kuwii ugu qiimaha badnaa maxaa yeelay waxa uu xoreeyay dadkii madow ee la guumaysan jiray oo mideeyay gobolada koonfureed iyo waqooyi ee Mareykanka dhammaan guuldarrooyinkan uu soo maray waxa uu ku guuleystay kadib markii uu u dhabar adeegay mid kastana isaga oo hadal heestiisu ay ahayd dhibaato kasta gadaasheeda waxa ah farxad iyo reereen dadka guuleysta dhammaantood waxa ay ka siman yihiin dhowr dabeecad sida dadaalka isku day daacadnimada quus la'aanta waan ku bishaarinayaa haddii aad leedahay dhammaan sifooyinkan inaad adigu tahay mid ka mid ah dadka diiraddu u saaran tahay guusha أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا